bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada wararka youtube-ka soomaalida. qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya oo lagula xisaabtamayo amni darada kusoo korortay magaalada muqdisho. maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii xumaanayay amniga magaalada caasimada ee muqdisho, waxaana ka dhacayay in ka badan 10 qarax, kuwaas oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay kasoo gaareen dad shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda federaalka. xildhibaan maxamuud abuukaate oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in dowladda ay xirtay wadooyin fara badan oo ku yaala muqdisho, sidoo kalena qaarkood ay ku adkaatay xildhibaanada inay maraan balse qaraxyo ay dhacaan. isagoo la hadlayay mid ka mid ah warbaahinta magaalada muqdisho ayuu sheegay inaysan jirin cid mas-uuliyadda amniga caasimada xil iska saaraysa, wuxuuna hoose ka xariiqay in sidoo kale aysan jirin cid lagula xisaabtamayo qaraxyada iyo dilalka ka dhacaya magaalada muqdisho, islamarkaana istaraatiijiyadda amniga sidii ku habooneed aan loo marin. xukuumadda soomaaliya ayuu sheegay inay kula xisaabtami doonaan amniga caasimada soomaaliya ee magaalada muqdisho. dhanka kalena dowladda turkiga ayaa ka hadashay qaraxyada ka dhacaya magaalada. wasaaradda arrimaha dibadda dowladda turkiga ayaa si kulul u cambaaraysay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho, kaas oo galaaftay nolosha ugu yaraan 11 qof. warka wasaaradda kasoo baxay ayaa lagu sheegay inay ka murugoonayaan waxa ka dhacaya muqdisho oo natiijadooda ay tahay in la dhameeyo shacabka soomaaliyeed, kuwo kalena la curyaamiyo. waxayna xukuumadda ankara ay sheegtay inay garab taagan tahay dowladda soomaaliya, islamarkaana kala shaqaynayso sidii dalka looga ciribtiri lahaa ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxii shalay, waxayna wacad ku mareen inay sii wadi doonaan qaraxyada inta ay dalka isaga baxayaan ciidamada amisom iyagu dagaal kula jira.